السلام عليكم أصحابتي السلام يا ومر كله iyo muuqaal kale maanta waxaan joognaa waqooyiga magaalada Hargeysa waad arkaysaan jawigan quruxda badan leh wadadii cusbeed bayna joognaa ee mareysay waqooyiga magaalada Hargeysa aad baan idin salaamaya asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan ومر كله muuqaal kale channelka waxaan soo gelinay muuqaalo badan muuqaalo ku saabsan dhul iibinayo sidoo kale qiimayaasha dhulka lagu iibiyo xaafadaha Hargeysa sidoo kale waxaan soo gelinaa macluumaad ku saabsan magaalada Hargeysa iyo wax ku soo kordha haddaad u baahan tahay dhul iiba haddaad u baahan tahay guri iiba haddaad hayso guri iiba haddii aad hayso dhul aad doonaysid in lagu iibiyo haddaad doonaysid adeegyadaas oo dhan si dhaqso ah lagu qabto lambarka shaashada ku qoran ayaad naga soo wici doontaa halkan oo ah wadadii 200 ah ee waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa markii wadadan la sameeyay meeshan ayaa noqotay meel dadku u kala dheereeyaan ama ay ka iibsadaan dhulka meeshan ayaa noqotay meel aad iyo aad loo jecel yahay maadaama oo ay marto wado heer caalamiya marka dad badan baa na soo weydiiyay in aan halkan muuqaal uga soo duubno ay arkaan sida ay meeshu u eg tahay iminka waxaanu joognaa dhanka ku beegan halkaa waxaa naga xiga sheedihii ayaa naga xiga halkaana gantaali baa naga xiga marka halkaa xeer ay naga xigtaa marka waxaanu joognaa dhanka waxaan joognaa waqooyi galbeed baanu joognaa marka meeshan aad iyo aad baa loo iibsadaa hadday noqoto wadada dhanka ka xigta waqooyiga sidoo kale hadday noqoto dhanka ka xigta koonfurta hadday noqoto dhanka wadada bariga hadday noqoto dhanka galbeedka wadadu meesha waxay ka dhigtay meel qaali ah oo qaali ah marka waxa jira dadku waxay ku xisaabtamaan baloorka koowaad ee wadada soo xiga ka ku xiga ka ku sii xiga saddexaad saasay u xisaabtamaan ka ku sii xiga afraad marka midba waxbaa la siiyaa kuwa markasta oo dhulku wadada u dhow yahay waa markasta oo qaali yahay markasta oo wadada ka sii fog yahayna waa markasta oo jaban yahay marka waa meesha waa meel dhismanaysa dhismayaasha beriga hore kuma ooli jirin xaafado badan baa halkaa degan sidoo kale halkan markaa dhulkan wadada kusoo jeeda dad baa iibsaday ganacsatada oo kale ayaa iibsatay meelaha qaar 100,000 wax ka badan 50,000 wax ka badan waxay ku xidhan tahay cabirka dhulka ayay ku xidhan tahay marka meelahan iminka halkaas kale waxaa laga sameeyay meel qalab dhisme lagu iibinayo inkastoo aan dawli ayna meesha dad badan soo degin oo ayna suuq ayna noqon laakiin haddana dhismayaasha guryaha ayaa ku badan oo maalinba maalinta kasii dambeysa ay sii dhismanaysaa meeshu dadka qaarna dhulka way iibsadeen waxay isleeyihiin ha idin qaaliyoobo ha iibinina ha dhisina ama sii iibiya qofba ujeedo ayuu u iibsadaa dhulka marka haddii aad agagaarkan wax dhul uga baahan tahay qiimayaashu way kala duwan yihiin jagooyinku way kala wadada u kala dhow yihiin qaar baa shisheeya qofba intuu u baahdo lacagtuu haysto ayay ku xidhan tahay dhulka intaa lagu helayo hadday lacagtaadu yar tahay meel wadada kala fog hadday lacagtaad badan tahay meel u soo dhow hadday lacagtaad sii badan tahay meel wadada saaran waxyaabahaas oo dhan waa la helayaa halkan waa halkii xigtay
waqooyi galbeed. Markasta oo xagga galbeedka loo kaco waa markasta oo dhulku uu sii qaaliyoobay. Marka xagga hore markaan u socono goolad baa jirta oo xagga loo laabanayo koonfurta oo waddadii hore ama waddada weyn ee tagta galbeedka qabata ku dhacaysa halka iskaga dhacaan iyo meelaha shifada iyo meelahaas waa meelaha aadka loo jecel yahay. halkan oo kale dhulkeedu waa yaraa ciid cas weeyaan oo waa dhul aan laf ahayn. halkaas dhulkeedu waa laf waa meelaha aadka loo jecel yahay ay dadku aadka u raadiyaan. halkanna kama dhacdo waayo qiimaha halkan baa ka hooseysa halkaas shishe. halkan lafteeda dadku markasta way ka iibsadaan. qofku markuu iibsanayo waxaa muhiim ah laakiin inuu ka taxadiro oo dadku ka iibsanayo dad waxa jira aan wanaagsanayno hadday doonaan intay iibsadaan si sharci darro u sii iibiya. marka qofku markuu dhulka iibsanayo waxaa muhiim ah inuu ka taxadir sameeyo dadku ka iibsanayo inuu ogaado cidda ay yihiin iyo waxyaabahaas oo dhan. marka dadka qaar baa dad xun kala ka iibsadaan adhow muran meesha la isku qabsado marka way dhacdaa taasna. marka waa iska ilaalin inay xagga hore markaynu gaadhno waxa weeyaan waddadii haddaan xaggan u laabano waddada oo waddadii nagu tuuraysay gantaalaha iyo basaska jigjigeer basaska Xaraawr baan u jeedaa. Xaraawr ayaa in yar markaan socono basaskii Xaraawr baan gaadhanaa. haddii aynu xaggii Mansoor iyo ereyadii baan ku dhacaynaa waddadii tegaysay ayaa bartan ka laabata. marka qofka degdegsan ee jooga 150 hadduu tegay jigjigeer oo kale 150 jooga waddada halkaas kaga soo dhacaya 150 ku toosan waxaa laga yaabaa inuu 4 mirir 5 mirir ku tago jigjigeer ay waddadu ay furan tahay. halkan waddadii kale oo iyaduna samaysan ayuu kaga dhacayaa. marka waxa weeyaan waxa isku dhaweysay waddadu waa qaybo ka mid ah magaalada oo waddada 150 qofka ka imanaya ama qofka cabaya ka imanaya sidoo kale ama qofka New Hargeysa kale ka imanaya kantaroolka hore ereyadiisaas magaalada sabcadeeda diiday xaq kale ka soo wareegi karaa waddada ma soo qabsan karaa. waxaa buurta hawlan asad iyo meelaha soo maraya. baabuur waaweyn baa maraysa. asxaabta aad iyo aad baan idin salaamaya khayr badan baa idin rajaynayaa waa inoo martay muuqaal kale. assalaamu calaykum.